shirkadda iPhone inay mar kasta iyo meel kastaba la socoto dhaqdhaqaaqaaga, gaar ahaan meelaha aad u badan tahay inaad mar kastaba booqato. Waxay si khaas ah ula socotaa shirkadda iPhone, ama ay awood u leedahay mar kastaba inay ogaato meelaha adiga ku khaaska ah. Okay, sideed iskaga xidhi kartaa? Isoo raac. Let's go. Setting-kaad imanaysaa, dabadeedna Allahumma musta'aan privacy-gaasaad tegaysaa, location-kaad tegaysaa. Location-ku haddaanu on ahayn, anu mar kastaba location service-ka waxaan ka dhigaa off, aan ka dhigaa oo markan u baahan baan isticmaalaa. Iminkana waxaan u furay waa idinka dartiin si aan idin tuso. Okay, haddii uu off ha on baad odhanaysaa. Iminka waa on. Halkaasaad soo soconaysaa, waxaad tegaysaa system service-kaasaad tegaysaa, dabadeedna waad soo soconaysaa. Halka ay ku qoran tahay significant location, waad aragtaan waxaa ku qoran iminka 0 record baa ku qoran. Halkana waa none. Allahumma musta'aan haddii aanad hore u imanin ama aanad iska xidhan, waxaad arki doontaa dhaqdhaqaaqaaga ay la socotay shirkadda iPhone mar kasta iyo meel kastaba. Dabadeedna waxaad odhan kartaa clear oo waad iska saaraysaa. Dabadeedna iska xidh gebigeedaba. Hadda laga bilaabo shirkadda iPhone wax dhaqdhaqaaqa meel kasta iyo mar kasta oo aad ku isticmaasho telefoonkaaga waxay kala